بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي halkan waa barta YouTube ee xogta dalka qodobada aad ku maqli doontaan warkayaga waxa qayb ka noqonaya banaanbaxyo looga soo horjeeda madaxweynaha muddaxileedkiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Muqdisho ka dhacay sidaas oo kale dibadbaxyadan ayaa waxa lagu taageerayay taliyihii dhawaan oo madaxweynaha xilka qaadista ku sameeyay isla markaana sidaas oo kale dhammaan garaadadiisa uu ka dhigay taliyihii hore ee qaybta booliska gobolka Banaadir General Saadaq John ayaa lagu taageerayay dibadbaxyadaasi ciidamo cusub oo ku labisan diriiska booliska Soomaaliya ayaa la soo dhoobay isgoosyada Fagax Sanco iyo sidaas oo kale afarta darjiino madaxweynayaal hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo sidaas oo kale Xasan Sheekh Maxamuud waxay sheegeen in ay baqdin qabaan isla markaana ay ka baqdin qabaan in weerar lagu soo qaado sidaas oo kale waxa ay tibaaxeen in mar waliba ay diyaar u yihiin weerarada kaga imaanaya sida ay hadalka u dhigeen dhanka Farmaajo maxay tahay sababta ka dambaysa safarka madaxweynaha muddaxileedkiisa dhamaaday ee Farmaajo uu ugu ambabaxay DRC shacabka ku dhaqan degmada Daynile ee gobolka Banaadir ayaa waxa soo wajahday baqdin aad u balaaran kadib markii gudoomiyaha degmadaasi Jacfar lagu eedeeyay in uu taageero siiyay General Saadaq John geesta kalena waxa isku day dil ka badbaaday sida hadalka uu dhigay taliyihii hore ee nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka General Turyere ugu horeyn aynu ku bilawnay daawaday halkan waa barta YouTube ee xogta dalka intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii ugu door corona warkayaga magaalada caasimada ah ee Muqdisho waxa ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeedo madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana dibadbaxayaasha oo aad u careysan waxa ay ku dibadbaxayeen erayo ay qayb ka tahay dooni mayno dictator iyo sidaas oo kale muddo kororsi dibadbaxaas ku qabsoomay xaafadda Shirkole degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa sidaas oo kale waxa uu ahaa mid taageero loogu muujinayay General Saadaq John waxa uuna ugu horeyn dibadbaxaasi ka bilowday xaafadda Shirkole boqolaal shacab ah ayaa ku dhawaaqay erayo ka dhan ah muddo kororsiga uu sameeyay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhammaan shacabkani oo wajigooda ay ka muuqanaysa caro ayaa waxay aad kaga xun yihiin weerarkii dhowr habeen ka hor ciidamo ka amar qaata madaxweyne Farmaajo ay weerar ku soo qaadeen taliyihii qaybta booliska ee gobolka Banaadir General Saadaq John geesta kalena caawa isgoosyada magaalada caasimada ah ee Muqdisho gaar ahaan qaybta waqooyi isgoosyada Fagax Sanca iyo afarta darjiino waxa lagu arkay ciidamo boolis ah oo wato hub iyo sidaas oo kale gawaarida qufulan waxa ayna ciidankani baarayeen dhammaan dadka halkaasi soo maraya iyo sidaas oo kale gaadiidka marayo waxaana la sheegay in ciidankani ay yihiin ciidanka booliska gaarka ah oo tababaran ee Haramcad sidaas oo kalena madaxweynayaal hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa ay sheegeen ujeedka ciidanka loo keenay isgoosyada Fagax iyo sidaas oo kale afarta darjiino iyo Sanco in ay tahay in weerar lagu soo qaado ayaga isla markaana ay aad isku difaacayaan madaxweynayaal hore ayaa waxa ay sheegeen in ay qabaan baqdin xoogan oo ku aadan in weerar ay ku soo qaadi karaan ciidankaasi sidaas oo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadlaya waxa uu sheegay in mar waliba ay diyaar u yihiin in ay isdaafacaan isla markaana ciidanka la soo dhigay isgoosyada Fagax Sanca iyo afarta darjiino ujeedka halkaasi loo keenay in ay tahay in ayaga lagu baqdin galiyo sidaas oo kalena uu sheegay in asaga iyo ciidankiisu mar waliba ay diyaar u yihiin in naftooda iyo maalkooda ay difaacaan sida hadalka u dhigay dhawaan ayaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu soo guuray degmada Cabdicasiis gaar ahaan xaafadda Miranaayo sidaas oo kale Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu deegaansanayaa nawaaxiga Fagax waxayna qabaan baqdin ku aadan in weerar lagu soo qaadi karo maadaama ciidamo dhowr ah halkaasi la soo dhoobay geesta kalena howlgallo ay fuliyeen ciidan ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay ku sheegeen guulo sidaas oo kale ciidanka ayaa waxa ay sheegeen in maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ay ku soo qabteen weerarkaasi waxayna hadalka ku dareen in madaxii qaraxyada ee al-shabaab lagu dilay howlgallo laga fuliyay deegaano iyo sidaas oo kale degmooyin dhaca gobolka Shabeellada Dhexe
ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay howlgalo kala duwan ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan deegaanada ku teedsan wadada xiriirisa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe. taliyaha guutada saddexaad qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka gaashaanle sare Abshir Maxamuud Maxamed Shataqi ayaa sheegay in howlgal lagu dilay sargaal sare oo ka tirsan al-shabaab kaas oo dhowr jeer qaraxyo ka geystay gobolka Shabeellada Dhexe. taliyaha oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in ciidamadu ay ku guuleysteen howlgal ay ku dileen madaxii qaraxyada gobolka Shabeellada Dhexe u qaabilsanaa al-shabaab iyo sidaas oo kale mid kamid ah ilaaladiisa, sidoo kalena nolosha ay ku soo qabteen laba ruux oo kale. ugu dambeyn waxa uu sheegay in ciidamada howlgallada ay sii wadi doonaan ilaa iyo inta ay xaqiijinayaan amniga wadada xiriirisa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar oo mararka qaar weeraro ay ka fuliyaan al-shabaab. wadada xiriirisa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan meel u dhow tuulada Gololey ayaa waxaa ka dhacay qarax ay ku dhinteen 17 qof oo shacab ah oo ay miino kula kacday halkaas xilli ay ku socdaalayeen isla markaana ay saarnaayeen gaari homi ah. shacabkani ayaa waxay la sheegay in ay ku sii jeedeen magaalada Jowhar oo xarun u ah maamulka Hirshabeelle. geesta kalena taliyihii hore ee nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya General Turyere waxa uu sheegay in uu ka badbaaday isku day dil. taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Turyere ayaa waxa uu sheegay in la damacsanaa caawa in la qarajiyo sidaas oo kalena uu ka badbaaday. taliyaha ayaa waxa uu sheegay xilli uu ku socdaalayay nawaaxiga Mirnaayo in weerar ay ku soo qaadeen ciidan asaga iyo ilaaladiisa. waxa uu sheegay in ciidanka weerarka soo qaaday lagu magacaabo Duufaan isla markaana ay qayb ka ahayn ciidankii uu ku arki jiray jackpointyada Karaan iyo Cabdicasiis. sidaas oo kalena waxa uu sheegay xilligii weerarka lagu soo qaadayay in ciidankii hore ee halkaa fariisinka ku lahaa ay aad u garanayeen gawaaridiisa, taana ay ka micno tahay in caawa la doonayay in la qaarijiyo. waxa uu waxun ku tilmaamay in isku day dil lagu sameeyo taliya hore ee nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya soo maray. waxa uuna sheegay in xilligii weerarka lagu soo qaaday uu ku sii jeeday guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka degan yahay nawaaxiga Mirnaayo. arintan ayaa waxay imaanaysaa xilli caawa isgoysyo dhowr ah sida isgoyska Fagax, Sanca iyo Afarta Darjiino lagu arkay ciidan cusub. waxa uuna sheegay in ciidankaas weerarka soo qaaday doonayana in naftiisa ay gooyaan sida hadalka uu dhigay Duufaan lagu magacaabo. waxa uuna sheegay in arintani ay noqon doonto mid dib la iskala xisaabtamo sidaana aan lagu kala hari doonin. waa sida uu hadalka u dhigay taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya General Cabdiraxmaan Maxamed Turyere. haddaba maxay tahay sababta madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Farmaajo uu ugu ambabaxay dalka DR Congo? warar aan helayno ayaa waxay sheegayaan in ujeedka madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ugu ambabaxay Congo DR ay tahay in uu doonayo in dhawaan uu bilowdo wada hadal u dhaxeeyo dalalka Soomaaliya iyo sidaas oo kale Kenya. madaxweynaha DR Congo ayaana haatan ah madaxweynaha Afrika ee xilligan isla markaana Farmaajo ayaa waxa uu doonayaa in uu wada hadal u furo madaxweynaha DR Congo labada madaxweyne ee Uhuru iyo sidaas oo kale Farmaajo. warar aynu helayna ayaa waxay sheegayaan in Farmaajo ujeedka ugu weyn uu ambabaxay ee tahay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee Farmaajo ayaa tan iyo markii xilligiisu uu dhamaaday waxa uu noqonayaa safarkii ugu horeeyay uu u ambabaxo dalka dibadiisa. dhawaan ayay ahayd muddo 2 sano ah oo lagu murunsan yahay marka ay ugu dareen baarlamaanka sidaas oo kale muddaxileedkoodu dhamaaday. magaalada caasimada ah ee Muqdishona waxay ku soo aadaysaa xilliga Farmaajo uu ka ambabaxay ayada oo marti gelinaysa dibadbaxyo iyo sidaas oo kale colaado dhowr ah xilli qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir lagu arkayo ciidamo kala taabacsan midowga musharaxiinta iyo sidaas oo kale ciidan daacad u ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
ugu dambeynna daawadayaal shacabka ku dhaqan degmada Dayniile ee gobolka Banaadir ayaa waxa ay xilligan wajahayaan cabsi aad u weyn kadib markii gudoomiyaha degmadaasi lagu eedeeyay in taageere iyo sidaas oo kale ciidan uu siiyay taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir General Saadaq John. gudoomiyaha degmada Dayniile ee gobolka Banaadir Jacfar ayaa waxa lagu eedeeyay in taageere iyo ciidan uu siiyay General Saadaq John oo ku sugan aaga Shirkole. dhowr habeen ka hor ayay ahayd ciidan taabacsan dowladda federaalka Soomaaliya markii weerar ay ku soo qaadeen General Saadaq John. wararka ayaana waxa ay sheegayaan in weerarka ciidanka iska caabinta ee Saadaq John ay qayb ka ahaayeen ciidan ka amar qaata gudoomiyaha degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. daawadayaal halkan waa barta YouTube ee xogta dalka guud ahaana halka ayaan ku soo afmeeraynaa warkii oo aad kala socoteen halkan. haddii ay tahay booqashadaadii kugu horeysay ee aad soo booqato bartan YouTube ee xogta dalka, waxaynu si naxariis leh kaaga codsanaynaa in subscribe aad noo saarto isla markaana gambaleelka aad furato. sidaas oo kalena saaxiibada waad u sii share gareyn kartaa muuqaalada aynu halkan ku soo baahino. haddii aad ka hesho halkan waa barta YouTube ee xogta dalka, waad ku mahadsan tahay la socodka iyo la jaanqaadka warkayaga alaaba.